agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Abubakar Maxamed ay weheliyaan afhayeenka wasaaraddaas iyo waliba mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa kormeeray iskuulada uu ka socday imtixaanka shahaadiga oo guud ahaan Soomaaliland ka bilaabmay 15 bisha Juun. kormeerkan oo qayb ka ah dadaalada wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ay ku hubinayso habsami u socodka imtixaanaadka shahaadiga. gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Togdheer Maxamuud Caynaanshe maamulaha dugsiga Sheekh Ibraahim ayaa ka warramay qaabku u socday imtixaanku. oo fadhiya 5,960 arday oo ka kooban 1,650 arday oo secondary ah iyo 3,419 ah primary oo fasalada sideed fadhiya. tirada ardayda waxay fadhidaa 26 goobood oo 10 goobood ay yihiin dugsi sare, 10 gooboodna 6 kamid ay gudaha magaalada Burco, 4 kalena ay yihiin miyiga. 16 primary-ga soo harayna 8 dabada iyo 8 gudaha ah. waxaan ku soo dhaweynayaa agaasimaha iyo afhayeenka wasaaradda iyo gudoomiyaha waxbarashadaba ku soo dhawaada Sheekh Ibraahim. waxaan farxad noo ah in imtixaanka si aad u qiimo badan maalintii saddexaad inoogu socdo. goobtanna xaqiiqatan waa ku faraxsanahay inay la joogaan oo goobtan uu joogo mas'uul aad u degan. iskuulada halkan la joogaa waa 12 iskuul. 12 iskuul oo qaarkood hal fasal aan u hayo, qaarna aan 2 fasal u hayo, 2 iskuulna aan 3 fasal u hayo. 19 fasal baa ku jira. afhayeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Cabdilaahi Ibraahim ayaa isaguna bogaadiyay qaabka uu socday imtixaanku. waxaan bogaadinayaa oo hambalyo u dirayaa guud ahaan howlwadannada imtixaanaadku meel kasta joogaan. waxaan eebowga rajaynayaa insha Allah dhammaanteen Ilaahay noogu rajaynayaa in imtixaanaadku si nabadgelyo ay noogu soo gabagaboobaan. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa howlwadannada xafiiska imtixaanaadka, guud ahaan gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka, wasiirka wasaaradda waxbarashada Mudane Cismaan Jaamac Aadan iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. gabagabadii agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Abubakar Maxamed oo ka hadlay kormeerkaasi ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ay soo saarayso arday aqoon iyo akhlaaq leh. ardayga soo gudbiyay shahaadada naga qaadanaya Soomaaliland gudaheedana deen wax tarka yeeshaan doonaa caalamka markuu tago in la tartamo bulshada kale caalamka inuu baahanay sida sare. runtii waxaan ka marakacaynaa imtixaanku inuu si qurux badan oo wanaagsan uga socdo markaa gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco. howlwadannada imtixaanka ee halkan jooga iyo mas'uuliyiinta wasaaradda aad iyo aad uga amaanan yihiin. sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Abubakar Maxamed waxa uu sheegay in wasaaradda waxbarashadu ay adkaysay nidaamka loo galayo imtixaanaadka shahaadiga, isagoona ku dheeraaday in wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ay tallaabo ka qaadayso cid kasta oo isku dayda inay baalmarto nidaamka loo dejiyay imtixaanaadka shahaadiga. waxaana ardayda kula dardaarmay inay iska ilaaliyaan moobilada iyo sidoo kale qishka. dhowrka goobadan soo marnay la saaka waxaan runtii la kulanay markaa 3 moobil oo kaliya markaa ayaanu la kulanay. 3dii moobilna ardayda waa laga qaaday, klaaskana waa laga saaray. runtii waa siyaasadda ay xukuumaddu qaadatay in qishka la cirib tiro oo la dagaalamo. xagga tayada wasaaraddu runtii culays badan bay sanadkan saartay, waa la sii kordhinayaa. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kii buugaagta qaybiyay, ujeedada buugaagta waxay in ardayga la siiyo inuu buuggiisa akhristo. muddadii buugaagta la bixiyay iskuulada dawladda arday fara badan baa runtii soo bedelatay. siyaasadda xukuumadda Muuse Biixi waxa weeyaan in 5 sano dhammaan macallimiinta waddanka oo dhan la tababaro. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.